madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed mudane Cabdiqani Siciid Carab ayaa fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka mudane Xasan Cali Kheyre. Fariintaas oo ku aadaneyd in ay dhiirigeliyaan ciyaartoyda qaranka Soomaaliya oo bartamaha sanadkani ka bixi doona magaalada Muqdisho. Sidoo kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed mudane Cabdiqani Siciid Carab wuxuu ammaan ugu qabeeyay ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed kuwaas oo diyaar garow xoogan ugu jira inay ka qayb qaataan tartanka Olombikada. Cabdiqani Siciid Carab wuxuu ammaan ugu qabeeyay mid ka mid ah xidigihii ka haray kooxdii laga soo arooriyay wadamada kala duwan ee qaaradda Yurub in uu qaranka maanta matalo xilli uu ka hadlayay xaflad ay soo agaasitay kooxda Banaadir Sport Club taas oo ugu dabaaldegaysa ku guuleysiga tartanka Janaal Daawud. Wuxuu hadalkiisa ku sii daray xilliga ay bixi doonaan xulka qaranka Soomaaliyeed iyo goorta ciyaari doonaan iyo xulka ay la ciyaari doonaan ayuu ka dhawaajiyay mudane Cabdiqani Siciid Carab. taas waxay ku tusaysaa marka kubadda cagtu inay u dhaqaaqday dhinaca in dadku ku wada qanacsanaadaan resultiga soo baxa. dhanka kaleeto kooxda horseed waa kooxdii ciidanka qalabka oo sida waay kooxda xoogga dalka Soomaaliya haddana koobkan ayaga sponsor gareeyay sponsorka ayaga maalgeliyay koobka. waxaan ugu mahad celinaynaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha qarshe oo runtii sportigana kaalin weyn kubadda cagta ugu fadhiya mar walbana jecel in koobkaas Janaal inay maalgeliyaan horan u ballan qaaday in wada. marka anaga haddana kubadda cagta waxaan farxad gelinayaa wada joogga iyo farxadda iyo sida loo damaashaadayo ama ay bulshada kubadda cagta dhan ay ugu soo qayb galayaan qaybooda kala duwan. marka taas waxaan ku soo koobi rabaa inay raad Banaadir waa hambaliyadii labaad aan caawa soo diray iyo xafladii labaad oo ka soo qayb galno oo ku saabsan munaasabadan oo ah koobka Janaal Daawud. intaa kadib waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto sida ay ragga igu horeeyay oo gudoomiyaasha kooxaha iyo intii halkan ka hadasho dhanba waxaa aad loo xusay kooxda qaranka oo caawa halkan lagu martigeliyay. kooxda qaranku intii laga sheegay oo dhan waan raacsanahay laakiin waxaan rabnaa inaan ku daro kooxda qaranku waxay ka yimaadeen kooxaha halkan fadhiya 25 naadi ee xiriirka kubadda cagta ka diiwaan gashay meel oo xubnaha ka ah ay ka yimaadeen ciyaartoyda arkaysaan lagana soo xulay. waan ku faraxsanahay inaad taageertiin kooxda qaranka adeegyaal u nahay anaga laakiin dadka ay ka yimaadeen kooxda qaranka xiriirka kubadda cagta adeegyaal u nahay maadaama adeeg u nahay u adeegayno meeshay ka yimaadeen waa kooxaha kubadda cagta Soomaaliyeed ay ka yimaadeen. waxay meeshaas ku joogaan waa kalsoonidii kooxaha waxay meeshaas ku joogaan waa taageero isugu jirta inay ka helaan dhiirigelin afka ah inay ka helaan talo inay ka helaan wax u sheeg sida hadda la sheegayo intii horeysa Xuseen kooxda qarankuna qaranka iska leh qof iska ma laha saaxiibana iska ma laha waa koox magac Soomaaliyeed u taagan nasiibkooduna ay noqdeen ciyaartoyda xagga fadhida inay matalaan. waxaan rabaa in halkan ku xuso oo farxad ah saa la socotaan waddanka waxaa yimid koox ka timid qurbaha kuna ciyaaraysay magaalada Muqdisho labadii wiiga la soo dhaafay ciyaar saaxiibtinimo la sameeyay kooxo kala duwan. ciyaarta saaxiibtinimo ay u yimaadeen kooxda qurbaha ka timid maxaa ka soo baxay faa'iidooyin badan ka soo baxay faa'iidooyin ka soo baxay oo markii laga saaro isdhexgalkii inay waddankooda yimaadeen in ciyaartoyda Soomaaliyeed ay bartaan maxaa ka soo dhex baxay waxaa ka soo dhex baxay ciyaartoydu ciyaaraysa mid ka mid ah inay macallimiinta qaranka u arkeen inuu qaranka Soomaaliya matali karo caawan uu kooxda ku dhex jiro oo ka mid yahay. ciyaartoygaas kooxdii wuu ka haray oo la socday wuxuuna uga haray magaca qaranka Soomaaliyeed. ciyaartoygaas asaga
waxaan rabaa marka maadaama dadku ay meelo kala dheer hooyanayaan lana daalan yahay inaan ku soo koobo hal kelmad aan rabaa inaan ku soo koobo oo ku saabsan kooxda qaranka Soomaaliyeed. kooxda kubadda cagta qaranka Soomaaliyeed maadaama hadda halkan ay fadhiyaan mas'uuliyiin ka socota xafiiska madaxweynaha, waxaan rabaa inay fariin naga qaadaan una gudbiyaan madaxda ugu sareysa dalka ee ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. maadaama kooxda qaranka aad ogtihiin bishii Abriil guushii la gaaray ay soo hoyeen, raggii guushaa soo gaaray qayb ka mid ah way ku jiraan kooxda qaranka ka mid yihiin. fariinteena ku aadan marka waxay tahay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo kooxihiisu waxay ku filan yihiin aruurinta ciyaartooyda, waxay ku filan yihiin tababarkooda, laakiin waxaan rabnaa in aad naga qaadaan fariin ah in mas'uuliyiinta sare ee dalka annagoo og inay ku mashquulsan yihiin howlo aad muhiim dalka uga ah haddana in aad fariin naga qaadaan oo ah in kooxda qaranka Soomaaliyeed ayaguna ay waqtigooda dhinac ka galshaan si ay taageerada dowladnimo ay u helaan. kooxda Soomaaliyeed waxay la ciyaari doontaa bisha Britol kooga ah 14keeda haddii Ilaahay yiraahdo. ciyaarta kooda waxaan ku ciyaari doonaa magaalada Addis Ababa. 20ka bisha 11aadna ciyaarta labaad waxaan ku ciyaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo dalka Djibouti. wadamada kale marka ay ciyaaraha leeyihiin waxaa la socda safaaradahooda, waxaa la socda wafdi ay dawladdu u saartay ee kooxda la socda. waxay dawladdu bixisaa mar walba qarash kasta ee ku baxay kooxda qaranka Soomaaliyeed. micnuhuna muxuu yahay guusha in la helo magaca Soomaaliyeed oo guusha hela wax loo socdo, taas kulligood loo socda. waahuba in madaxda qaranku ay jecel yihiin isboortiga, isla markaasna ay jecel yihiin inay kaalin ka qaataan haddii waqti uu ogolaado. laakiin fariinteena waxay ku saabsan tahay mar haddaan annaga dadkii u xil saarna aan nahay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo kooxihiisa iyo macallimiintooda isku tegay, kaalinta kaleetan waxaan ka rabnaa inaan dhiirigelin ayadoon aan ka helno madaxda sare ee dowladda, annagoo ku kalsoon mar walbana wasiir wanaagsan aan ku leenahay dhinaca wasiirada oo ah wasiirkeena isboortiga Khadiija Maxamed Diiriye oo mar walba dhex taagan isboortiga iyo sidii loo horumarin lahaa. nagama maqna way nala joogtaa mar walba. marka taas fariintaas waxaan leeyahay marka taageerada ay dadweynuhu bixinayaan in dhinac kalena aan ka helno. intaa kadib waxaan rabaa inaan halkaa kusoo gabagabeeyo kooxda qaranka waligan waa la dardaarmeynay.